awoodda raganimada haddii uu ninku caadaystay inuu cabo caana boodhe awoodda raganimada wuu hoos buu u dhigaa wax kalaa lagaa caawiyaa cidi ku siisaa calankaa jab waa dhoombirkoo caajis kaa galo guurku ilaa xaawiya aada ragna waxa ugu daranuun marka xaaladda firaashka ay maxaan ku dhaha musaaracada markay bilaamayso uu soo barrogan waayo oo meelaha had iyo jeer ugu dhibaatada badan yaalaana hadday taasu dhacdo dee ninka macno weyn ma sameeyo cagtaa lagu toosinayaa lamana dar yeelo haddii alla yidhaahdo muqmadna looma gooyo haddii alla yidhaahdo caawimana lama siiyo waa hawl aada iyo aada u badan in laga hadlaana noloshay ka mid tahay waa qaab dee nolosha ka mid ah iska daa inay dee culimmadu ka hadashee xataa dadkan gabya baabkan isku daya inay culayskiisa wax ka tilmaamaan oo ay ka hadlaan oo nin shaaciraba wuxuu odhan jiray wax kalaa lagaa caawiyaa cidi ku siisaa calankaa jab waa dhoombirkoo caajis kaa galo marka haddii dhoombirka caajis kaa galo lagu tirsan mahayo ciniin baa tahay marka inta badan ibliiskuna halkaasuu haddii alla yidhaah ka dabagalaayo waa tii xadiidkii saxiix ahaa nebigeenu ka warramayey maalin walba warbixin baa la siiyaa shaydaanka weyn ee carshigiisu biyaha dul yaalliinii bad ninka yacni jin kasta shaydaan kasta oo qariinkii la raaciyey ambiya darajo weyn ma siiyo waxa ugu sarreeyo uu dallacsiiya waa ruuxa laba qof oo muslimiina oo wada noolaa oo isqabi kala dira kaasuu madaxa u salaaxaa kaasuu yidhaahdaa waad igu bannaan tahay kaasuu yidhaahdaa waad igu bannaan tahay marka wuxuu awood u waayayaa ninku sawjadiisii xalaasha ahayd inuu u hamoodo ama uu musaaracadii iskaga celiyo amaba waxaa dhacda inta uu istiilo in awooddii ay kacdo dabadeedna marka uu hawshii fuli is yidhaahdo uu waxba iska waayayo way dhacdaa dadka qaadka cuna qaarkood dadka qayila qaarkood hawshaasi way ku dhacdaa oo intay istiilaan oo haddii alla yidhaahdo ay is yidhaahdaan hawsha waad qaban kartaa marka ay siidhiga loo afuufo uun hawshii ay socon weydo inta badan dadka qaadka cuna qaarkood sidaasi way haleeshaa marka waxaan taa u leeyahay xaalad kasta oo ninku marka uu musaaracada isu diyaariyo ay hawshu kala dhacdo inaanay wada sixir ahayne qofku isticmaal uu mukhadaraad isticmaalay ama kiniin isticmaalay ama howlo kaleba ay ku dhaceen taas way keeni kartaa qaabka uu u nool yahay ruuxu way ku keeni kartaayoo waxay yidhaahdaan ruuxu hadduu maalintaa kambadhuudh uu kambadhuudhka badiyo kambadhuudhku waxa weeyaan intoo lugaha dhulka la saaro deedna qofku uu kuududsado oo badhaha iyo cidhbaha uu isa saaro kuudud baa laydhaa waa taariikhdeenna aad bay ugu badan tahayoo tajribadaasna soomaalidu aad bay u taqaanaayo waxay idhaahdaan kuudud waa korma rag kuudud waa korma rag hadduu qofku kambadhuudhka ku shaqeeyo oo kambadhuudhka badiyo awooddiisa raganimadu yaalaa ma fiicnaato oo way jilecdaa waxaa ka mid a waxyaalaha had iyo jeer awoodda raganimada hoos u dhigaan sixir ahayn qofku hadduu ciirdhan yahay hadduu qofku ciirta aada u isticmaalo geela qooqan baaba lagu shubaa ciirta waxyaalaha had iyo jeer ragga ka dila maxaanku dhaha awoodda raganimada ee la hubiye waxaa ka mid a caanaboodhaha laftiisu haddii alla ka dhigo awoodda raganimada haddii uu ninku caadaystay inuu cabo caana boodhe awoodda raganimada wuu hoos buu u dhigaa ama surcatul qadfi baa yimaado biyuhu hore ayay uga soo dhacaan